kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii Chegan Channel TV oo aad maanta ka dhageysanaysaan war degdeg ku dhageysan doontaan. Haddaba maanta warka degdeg aan idin hayna waxa weeyaan madaxweynihii shalay halkan ka sii deynay warbixintiisa ee Muuse Biixi Cabdi ee loo doortay 13 November dalka Soomaaliland 13 Decemberna lagu wareejiyay talada wadanka. Ayaa maanta oo 14 December wuxuu soo saaray digreetadii madaxweyne ee ugu horeysay oo uu ku doortay dawladdii uu la shaqeyn lahayd isaga. haddaba Muuse Biixi Cabdi ayaa dawladdiisan durba waxa ka soo burqanaya dhaliilo xoog leh oo ay dadku isweydiinayaan waxyaabaha kowka ee dhaliili kara waxa dawladani ma tahay dawladdii dadka gaarsiin lahayd birri maanta ka fiican dawladani ma tahay dawladdii dadka u adeeg lahayd ee gaarsiin lahayd adeegay u baahnaayeen dad badan ayaa waxay qabaan inaanay dawladani ahayn dawladdii Muuse Biixi Cabdi laga filayay waxaanu dawladdii ku soo koobay xisbigii uu isagu ka soo baxay hase yeeshee xisbiga baa ku soo koobay wuxuu ka yimi raggii la filayay inay wadanka isbedel u horseedi karaan waxaanu soo celiyay xubno ka tirsan dawladdii hore iyo xubno xisbiga ka tirsan oo aan awalba ka fogeyn dawladda waxa kowka xubnaha uu xisbiga ka tirsan soo magacaabay ninka lagu magacaabo Maxamed Kaahin Axmed oo ah askari kale oo isaga saaxiib yihiin uuna u dhiibay wasaarad muhiim ah oo ah wasaaradda arrimaha gudaha wasiirkii hore ee wasaaraddaasi Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa isagana waxa loo dhiibay wasaaradda waxbarashada hase yeeshee waxa meesha laga saaray ninkii wasaaradda waxbarashada kor u soo qaaday ee la oran jiray Cabdilaahi Habane iyo rag kale oo iyaguna aad u cusla oo aqoon dheer u lahaa habka dawladnimo iyo tixraaca dhaqanka shaqada dawladnimo waxyaabaha kale ee dawladdan lagu dhaliilayo ee ugu weyn ee la filayo inaanay dawladdani gaadhaynin waqtigii loogu talagalay lana kulmi doonto mucaarad aad u xoog badan maadaama ay ka tagtay wadadii laga filayay waxa kow ka ah inuu soo dhisay dawlad 28 wasiir ka kooban halkii laga filayay dawlad dhowr iyo 10 wasiir ka kooban waxaana lala yaabay oo wax lala yaabo noqday inuu magacaabo wasaarado cusub oo aan horeba u jirin iyadoo kuwii horeba la yareyn rabay oo uu ku soo daray wasaarad la yiraahdo wasaaradda dastuurka wasaaradda dastuurka waxa la lahaan jirtay dalka Soomaaliya oo kaliya oo dadku ay marka dastuurka la sameeyay dib loogu magacaabay dawladda xamar fadhida ee wadanka Soomaaliya haddaba dalkan yare sheegay inuu Soomaaliland la yiraahdo inuu ka go'ay Soomaaliya inteeda kale ayaa waxa waxyeelo weyn oo juga ku ah in wasaaradaha ay ka bataan xadka waxaana la sheegayaa aqoon-yahanadii la soo dhisay xisbiga ee buugga u qoray siyaasiga ah ee wadanka la doonayo in lagu hago 5 sano ee soo socda inay intooda badani dawladdan ka maqnaan doonaan waana warkaasina waxaana la sheegay inay iyagu badankoodu iska diideen kadib markay arkeen Muuse inuunu doonaynin madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi wadada saxda ah ee wadanka lagu horumarin karo waxaana la sheegayaa in aqoon-yahan Maxamed Cali Bile iyo Jamaal Cali Xuseen iyo waliba ninkii buugga soo hida qoray ee buuggii siyaasadda wadanka xisbiga hagayay qoray ee la yiraahdo Ahmed Ismaaciil Samatar in saddexduba ka maqan yihiin dawladda waana warka ay dadku aad ka uga naxeen waxaana markii hore la filayay dawladda raggaas iyo rag kale oo badan oo aqoon-yahaneen inay ku jiri doonaan haddaba dhegaystayaal rayigiinu waa u muhiim ma kula tahay dawladda Muuse Biixi inay sii socon karto gaarsiin karto birri maanta ka fiican wadanka ma kula tahay dhegayste inay wadanku habkii laga rabay ama shaqadii la rabay ama waxqabadkii la rabay uu qaban karo marka loo eego aqoon gaabnida wasiirada qaarkood la soo magacaabay iyo hadii Ilaahay ka dhigayo ragga ka maqan ee aqoontii wadanka iyo horumarintiba fadhiday dhegaysta rayigaagu waa noo muhiim kuna xidhnow Chegan Channel TV mar walba warka ugu dambeeya kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa Chegan Channel TV waxaan idin ku codsanaynaa ku xidhnaataan wararkayga iyo akhbaaradkayga sida hadii jira degdeg ah u socday mar walba idin imanaya iyo horumarka aan ka sameeyay xagga internetka inaad aad ugu xidhnaataan mar walba la shaqeysaan ayaa la idin ku codsanayaa dhegaystayaal waa mahadsantiin subscribe